Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barashada taxanaha Windows 10. casharkii hore waxaan ku qaadanay sida Windows 10 loogu xiro kombiyuutarkaaga. Videogan ama clipkan waxaan ku dul maraynaa qaybaha ugu horeeya oo markaad kombiyuutarkaaga aad gashid ay uu ka kooban yahay. qaybta koowaad uu ka kooban yahay waxa weeye waa desktop, oo waxa weeye waa qaybtan derbigan uun aad wax saari kadib oo kombiyuutarka oo la dhaho desktop. desktopka marka laga soo tago waxaa ku xiga start menu oo ah meesha kombiyuutarka laga galo oo applicationska iyo waxyaalaha ku jiro dhan aad ka daabacan kadib oo ka geli kadib. markaad taabatid start menu waxaa kuu soo baxaya qaybahan kala duwan uu start menu ka kooban yahay. sida halkan ka muuqata 3 qaybood ayuu ka kooban yahay start menu. qaybta koowaad oo ah sidebar oo qaybtaana ugu geesaysa waxaa la dhahaa sidebar ama settings menu. wuxuu ka kooban tahay qaybtaas magaca accountka ama qofka isticmaalaha magaciisa, sidaas oo markaas log off ama log on ku sameyn kadib ama qof kale aad u bedeli kadib. wuxuu ka kooban yahay icon kala duwan oo kale oo aan dib ka eegi doono, oo kan ugu horeeya oo ama kuwa ugu muhiimsan ay ka mid yihiin inuu yahay settingska iyo powerka oo meesha kombiyuutarka laga damiyaa ama dib looga daaro. qaybta ku xigta waxa weeye waa qaybtan dhexe oo ah magaceedu yahay applications menu. applicationska menu wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. qaybta ugu horeysa waa recent added applications ama applicationadii ugu dambeeyay oo aad kombiyuutarkaaga ku xidhay ayay soo saartaa. kan ku xigana waxa weeye most used applications oo ah applicationada aad inta badan isticmaashid ayay taxdaa. waxaa ku xiga all apps menu oo micnihiisu yahay applicationada oo dhan, kuwaas oo macnaha si xaraf isugu xigxiga oo ka bilaabato xarfaha applicationada numberka bilowdo kale numberka hoostooda ayay galaan. sida hadda labadan application mid walba number buu ka bilowdaa, marka numberka hoostiisa ayuu galayaa. wixii xarafka a ka bilowda a unbay hoos galayaan. marka kulligood applications computerka kugu xiran oo dhan iyagoo alphabetical ah ayay saas usoo halkaa all app menu usoo taxmayaan. marka taasi waa all app menu. waxaa ku xiga tiles oo ah qayb aad applicationada aad inta badan isticmaashid aad shortcut uga sameyn kadib aad gelin kadib. macnaha inta applicationka soo qaadid ayaad shortcutkiisa halkaa gelin kadhaa si aad marka ugu horeysa start menu taabatid way kuugu fududaado ilaa isla markiiba inaad applicationkaas ku furtid. waxaa ku xiga start menu haddaan kasoo tagno search box oo ah meesha kombiyuutarka laga baaro wax kasta uu ku jira, ama application ha ahaato, data ha ahaato, wax kale pictures ha ahaato, ama xataa internetka ama waxyaalaha kombiyuutarka ka baxsan ayaad ka baari kadhaa oo wixii aad rabtid ayaad ka baari kadhaa. halkaas waa search boxka. search boxka qaybtan ku xiga oo dheer waxaa la dhahaa taskbarka waxay sameysaa 2 wax. midda koowaad applicationada aad inta badan isticmaashid ayaad shortcut gelin kadhaa oo aad ku pin garayn kadhaa, macnaa aad ku dhejin kadhaa. midda kale application kasta aad furtid na wuu soo saaraa oo application markaa furtid halkan ayuu kasoo baxayaa. oo hadda 3dan ugu horeeya ama 4tan ugu horeeya waa ku bingaraysan oo meesha waa application markaan rabo ayaan furanaya, laakiin kuwa ku xiga waa kuwa furnaa oo hadda aan xiray. marka hadda sida idiin muuqata applicationadan waa meeshaan ku jira, markaan rabo si fudud ayaan u gujinayaa markaas si ay ugu furmaan. applicationkii furanna wuu kasoo baxayaa oo iga tusaya halkan, oo si fudud ayaan u gaabin karaa una soo furi karaa. taskbarka wuxuu kaloo ka kooban yahay meelo ku tusaya sida waxyaalaha codka aad laptop isticmaalaysa batteriga meeshuu joogo iyo inuu charge gareynayo in kale
network aad ku xiran tahay buu ku tusayaa ama wifi ha ahaado ama ethernet ha ahaado audioda computerka luuqadda keyboardkaaga timeka iyo taariikhda action centerka oo qaybta ugu dambeysa iyadana waxay ka kooban tahay notification ama waxyaalaha computerka uu ku sheegayo oo marka computerka macnaha wax message soo dhacaan ama wax ka qarimaan oo kale ama wax windowsko update iyo wixii lamid ah meel uu soo geliyo oo magaceeda notification bar ama notification section iyo qaybta kale oo notificationka iyana la socota waa action center oo ah meel aad icona yaryar oo aad isla markiiba si fudud wax uga damin karin ay ku jiraan sida computerka isla markiiba waxaad u switch garan kartaa tablet mode ma hadduu yahay regular desktop mode hadduu yahay isla markiiba si aad tablet mode ugu bedeshid ama se waxyaala yaryar oo sida network oo kale locationka iyo wixii lamid ah ayaad si fudud on iyo off uga dhigi kadhaa u damin kadhaa una daari kadhaa waxyaalo kalena waa kusoo dari kadhaa waana ka nusqaamin kadhaa marka taasna waa action center mid qayb walba oo intaan clipkan uga hadalnay si buuxda ayaan ugu dalmuraynaa clip iyada u gaara marka waa clipkan halkaasaan ku joojinaynaa oo ah interfaceka amase daaqada ugu horeysa oo computerka laga galo oo ka kooban desktop start menu search boxes taskbar action center halkaasaan ku joojinaynaa marka insha allah next clip waxaan uga hadlaynaa sida loo bedelo ama loo qaabeeyo desktopka oo ah daaqada ugu muhiimsan oo computerka marka aad fudhid kuu soo baxaysa halkaasaan noo jooga clipkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu